magacaygu waa Qalin Warsamo Cadar waxaan joogaa maantay magaalada Galdogob ayaan joogaa waxay noo tahay farxad weyn waxaan ka soo jeedaa beelahan beesha Sacad dhanka kale dadka hawiye dawlad weeye marka hawiyana waa reebahay dawladna waa reebti dhamaan labada dhinac baan ahay anu marka farxad gaar ah maanta ii tahay maadaama reer aabe iyo reer abti oo muddo badan dagaalamayay maanta gogol nabad ugu fadhiyo runtii farxadan la soo koobi karin horta ani qaasaan ii tahay tan labaad hadaan u gudbo waxaan u arkaa maanta nabadaani 40 sano oo tii reer bani Israa'iil oo kale aan soo marnay inuu noo dhamaaday inaan guushii nabadda u gudubnay baan maanta u arkaa waxaan u arkaa inuu miro dhali doono waxaan u arkaa mid mudug saameyn doona waxaan u arkaa insha Allah Soomaaliya mid saameyn doona waxaan u arkaa mid looga gudbi doono ama looga gudbayo colaadii iyo dhibaatadii in badan Soomaaliya daashatay gaar ahaan mudug midda kale hadaan reer mudug kelmad yar kaftana ku daro waxa la yiri reer muduga oo xanuunsan baantii dabada la geeyay dhakhtar loo geeyo xaniyaha ka xanuunsan marka waxa la dhakhtarka wuxuu yiri xaniin baan ka bixinaya markii loo sheegay wuxuu yiri doctore wallahi baan wixii mudug oo aan laba xiniyood ku joog wadaan hal mid kula laabanayn buu yiri marka maanta waxay taagantahay labadii xaniyood oo reer mudug inaan xabaalanay oo Soomaaliya maanta nabadii dhamaan uuna baaqayno meel ka saarba inaan gaarsiino ilaahay idinkii Soomaaliya waxaan leenahay dhamaan nala qaata farxad bay maanta noo tahay reereen bay noo tahay anagoo maanta gacmaha is haysana oo Galdogob joogna oo ka nimid gobolka isla mudug joogna awalba kana nimid kaalkacyo farxad weyn bay noo tahay waan ku faraxsanahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa halkaas inay noo socoto ilaahay noo taabagaliyo ummadda Soomaaliyeedna waxa leenahay noo soo duceeyo reer mudugna waxa leenahay dhamaanteen nabadda qaata meel ka soo joogtaan hadaa siyaasiyiintiin hadaa culumanahay hadaa dhalinyaratiin hadaa waxgaratiin hadaa gabdhatiin dhamaan nabadda hal qaato qofka soo xil iska saar ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa naga gudbiyay tiihi ilaahay nagu socoliyo السلام عليكم ورحمة الله waxaan joognaa shirka nabadeynta beelaha walaalaha ah Sacad iyo Leelkase runtii jawi qurux badan ayaan nool lahay oo joognaa jawiga quruxda badan dadka aan la joogin inaan fariin u dirno ayaan doonaynaa fariintaasna waxay tahay nabaddu inay tahay asaaska horumarka anoo fariintaas adkaynaya ayaan waxaan idin la wadaagayaa laba tajrubo ama laba dhacdo oo runtii ka tarjumaysa inay nabaddu tahay asaaska horumarka dawladda Mareykanka oo taqaanaan oo alquwa alcudma la yiraahdo ama maxaan ku iraahdaa adduunka baawarka dhaqaalaha iyo maaragtay aqoonta iyo militariga iyo saxaafadda dhinac walba maanta ayuu hogaaminayso dawladdaas Mareykanku dagaal sokeeye ayay soo gashay waxa isu diridhay waqooyi iyo koonfur markay waqooyi iyo koonfur isu diridhay heshiis baa dhex maray heshiiskaas odayaal baa u istaagay reer Mareykana odayaasha reer Mareykan oo heshiiska u istaagay waxa loo bixiyay al-aabaa'ul mu'assisuun aabayaashii aasaasay Mareykanka maanta aan naqaano waxa la yiri waxa aasaasay oo lagu sunta aabayaashii nabadda soo hooyay waxaana ka dhalatay Mareykanka aan maanta naqaano oo awoodda aad garanaysaan ah oo konton iyo labada gobol midoobay baa ka soo baxay waxay arintaas ku dhalatay nabadii ay odayaashaasi aasaaseen waxa la mid ah dalka Rwanda oo maanta runtii dhaqaalaha Afrika hogaaminaysa dalka Rwanda 3 bilood gudahood ayay waxay iska dileen 3 milyan oo qof 3 milyan waxay gaareen heer markay islaynayeen reer Rwanda waxay gaareen qofka inta la qabto laba qabiil ba isku laayeen qofka inta la qabto la weydiiyo qaabkee ayaan ku dilaa qaabkeed jeceshaa in lagu dilo qaab fudud haduu doorto waa inuu lacag la baxo qaab fudud haduu xabad hal lagu dilo haduu yiraahdo waa inuu lacag la baxo si xabad loogu dilo hadii kala qaab kulul baa lagu dilaya reer Rwanda baabaha iska dhigan waa burbureen madaxda u soo baxday nabadii baa laga shaqeeyay waxa soo baxday maanta Rwanda oo hogaaminaysa Afrika dhinac walba oo hogaaminaysa deganaansho siyaasadeed ku hogaaminaysa dhaqaale ku hogaaminaysa waxa kale waxaanu rabnaa Soomaaliya dhihimayna Afrika hogaaminaysa Soomaaliya caalamka oo dhan hogaaminaysa inaan aasaasno asaaskeedii buddhigeedina waxaan ka bilaabaynaa gobolka mudug nabadda maanta ay isugu yimaadeen walaalaha Sacad iyo Leelkase insha Allah ta'ala waxaan idin leenahay insha Allah ta'ala baaqi nabadda ayaan Galdogob ka soo bilaabi doonaa iyo bandiiradley nala soo dhaweeyo dhamaantiina waa mahadsantiin